السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabteena qiimaha badan ee ku xiran channelkeena Xogdoon ee YouTube. Maanta barnaamijkeenu waxa uu ka duwanaan doonaa ama ka xiiso badnaan doonaa dhammaan barnaamijyadii hore ee aan halkan idinkula wadaagi jiray. Waa anigu sida aan u arko. Waxaan jeclaystay barnaamijka intaanan bilaabin inaan idin weydiiyo hal su'aal. Su'aashaas oo ah kumaad u aragtaa inuu yahay ama ahaa qofkii ugu taajirsanaa ee abid soo maray adduunka. Bal isku day su'aashaas jawaabteeda. Isku day. Aniga ahaan Jeff Bezos, milkiilaha Amazon. Maya ma aha. Elon Musk, milkiilaha SpaceX. Maya ma aha. Bill Gates. Ma aha. Mark Zuckerberg, milkiilaha Facebook. Maya ma aha. Larry Page. Maya ma aha. Haddaba waa kuma qofka ugu taajirsan adduunka. Hadda ma aha. Hadduusan xitaa hadda noolayn kumuu ahaa. Haddaba waan kuu qishayaa intaanan barnaamijka bilaabin qofkii ugu taajirsanaa ee adduunka soo maray waxa uu ahaa qof muslim ah. Ee talow kumuu ahaa. Haddaba su'aashan iyo su'aalo kale oo aan dareemayo inay maskaxdaada ka guuxayaan waxaan ku falaqay doonaa barnaamijkeena Xogdoon jawaabahooda. Sidoo kale barnaamijkeena oo dhowr nuqdo ka kooban waxaan ku arki doonaa nin yiri waxaan ogaan doonaa adduunka halka uu ku dhamaado. Badda waxa ka dambeeyo, yacni badda gadaasheeda adduunyada ahaatay. Iyo ninkaas halkii uu ku dambeeyay. Sidoo kale barnaamijkeena Xogdoon maanta waxaan kuugu soo gudbin doonaa haddii Alla ka raali noqdo taariikhda inta la diiwaan geliyay 10 qofood ee ugu taajirsanaa. Fadlan intaanan muuqaalka bilaabin waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid waxa ay noo tahay dhiirigelin iyo dardar cusub. Ku soo dhawow barnaamijka oo faahfaahsan. milkiilaha shirkadaha Tesla iyo SpaceX ninka lagu magacaabo Elon Musk ayaa hadda ah qofka ugu taajirsan adduunka sida lagu qeexay liiska bilyaneerada ee sanadkan la daabacay oo ay shaacisay hay'adda Forbes. Hantidiisa qiimaheedana waxaa lagu sheegay 188 bilyan oo dollar. Laakiin Elon wuxuu noqonayaa qof lacag yar haysta marka lala barbar dhigo ninkii ugu taajirsanaa ee ebad soo maray dunida. Ninkaasi waxa uu ahaa haddii aan shaaca ka qaadno Mansa Musa, waana boqorkii muslimka ah ee qarniga 14aad maamuli jiray galbeedka Afrika. Hantidiisu aad bay u ballaarnayd waxaana ku tiirsanaa guud ahaan dhaqaalaha uu dalku ku taagnaa. Dhaqaalaha uu Muuse haystay aad bay u badnaayeen, lacagihiisuna waxay yaaleen meel walba. Taasina waxay xitaa sababtay inaan la xisaabin karin inta tiro ahaan ay dhannayd lacagtiisa. Sidaas waxaa BBC-da u sheegay Rodolph Bach oo cilmiga taariikhda ka dhiga jaamacadda California ee Mareykanka ku taala. Sidoo kale qoraaga lagu magacaabo Jacob Davison ayaa buug uu sanadkii 2015 ka qoray taariikhda boqorkaas reer Afrika ku yiri Mansa Musa waxa uu ka taajirsanaa qof walba oo ay niyadda uga jirto tujaarnimo, yacni hantida aad ku fakaraysid inaad heshid in ka badan ayuu haystay. sanadkii 2012 website laga leeyahay Mareykanka oo looga sheekeeyo dadka taajiriinta ah ayaa hantida uu Muuse haystay ku qiyaastay 400 oo bilyan oo dollar. Hantida uu markaas haystay haddii maanta loo barbar dhigo waxa ay ka badneed ayaa lagu leeyahay 400 oo bilyan oo dollar. Balse dadka ku xeel dheer taariikhda dhaqaalaha waxay intooda badan isku raaceen in boqorkaas hantidiisu aan tiro sax ah lagu jaangoyn karin. Mansa Musa oo lagu naynaasi jiray boqorkii dahabiga ahaa waxa uu ka dhashay qoys boqorro ah waxa uuna dhashay sida la xuso sanadkii 1280. walaalkiis oo lagu magacaabi jiray Mansa Abubakar waxa uu boqortooyada maamulayay ilaa sanadkii 1312. Abubakar wuxuu boqortooyada maamulkeeda uga dagay si uu u aado safar u go'aansaday. Sida laga soo xigtay taariikhyahankii muslimka ahaa ee noolaa qarniga 14aad lagu magacaabi jiray Shabaab al-Umari oo u dhashay Suuriya. Abubakar waxa uu jeclaystay inuu soo ogaado waxa ka dambeeya badweynta Atlantika. waxaan dhihi karnaa waxa uu faraha la galay uunka iyo abuurista Eebe. Waxa uu ka helo ayuu saleeyahay. Safarkiisa waxa uu ka koobnaa sida la sheego 2,000 oo maraakiib ah iyo kumanaan ruux oo iskugu jira rag iyo dumar oo addoomo ah. Way shiraacdeen laakiin weligood dib dambe looma arkin. Taariikhyahanada qaar sida Ivan Van oo u dhashay Mareykanka waxa uu sheegay in safarkaas uu gaaray ilaa Koonfur Ameerika, laakiin taasi wax caddayn ah looma hayo. Si kastaba ha ahaatee Mansa Musa ayaa dhaxlay boqortooyadii uu ka tagay walaalkiis
markii uu xukunka la wareegay waxaa si weyn u ballaartay xukunkiisii boqortooyada waxaana la helay khayraad fara badan oo dahab ah. bal markaana aan eegno safarkiisii Maka. inkastoo boqortooyadii Maali ay saldhig u ahayd dahab fara badan, haddana boqortooyada laf ahaanteedu aad caan uma ahayn. laakiin arrintan waxay isbedeshay markii Mansa Musa oo muslim ah uu go'aansaday inuu soo xajiyo isagoo sii maraya lamadegaanka saxaraha deserti iyo Masar. waxaa lagu soo warramay in boqorka uu Maali kala tegay wafdi tiradooda ay gaaraysa 60,000 oo rag ah. waxaa raacay dhammaan saraakiishii boqortooyadiisa, askartiisii, majaajilaystayaashiisii, ganacsatadii, wadayaasha gaadiidka geela iyo 12,000 oo addoomo ah. waxaa sidoo kale raacay ari aad u fara badan oo iskugu jiray riyo iyo ido. marka taariikhda laga sheekaynayo waxaa la tilmaamaa in safarka boqorka uu ahaa magaalo guuraysa oo dhex maraysa saxaraha. hagaag, bal iminkan aan eegno 10 ruux ee ugu taajirsanaa dunida. kama hadlaayo 10 ruux ee waqti xaadirkan dunida ugu taajirsan sida Elon Musk iyo Bill Gates iyo Mark Zuckerberg iyo dabcan waxaa filaya kuwan liiskan meelba kuma laha. waayahay, sidaan hore u sheegnay nambarka koowaad waxaa ku jira Mansa Musa oo ahaa boqorkii Maali kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1280 ilaa 1337. hantidiisana wax qiyaas ah looma hayo sida xaqiiqda ah. nambarka labaad waxaa ku jira Augustus Caesar oo ahaa boqorkii Roomaanka kaasoo noolaa intii u dhaxaysay 63 dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam ka hor ilaa 14 dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam kadib. hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 4.6 trilyan oo dollar. nambarka saddexaad waxaa ku jira Shao Shu oo ahaa boqorkii Shiinaha kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1048 ilaa 1085. hantidiisana wax qiyaas ah looma hayo. nambarka afraad waxaa ku jira Akbar I oo ahaa boqorkii maamulka Mughal ee Hindiya kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1542 ilaa 1605. hantidiisana wax qiyaas ah looma hayo. nambarka shanaad waxaa ku jira Andrew Carnegie oo ahaa ganacsade ka soo jeeda Scotland iyo Mareykanka kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1835 ilaa 1919. hantidiisana waxaa lagu qiyaasay 327 bilyan oo dollar. nambarka lixaad waxaa ku jira John Rockefeller oo ahaa ganacsade Mareykan ah kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1839 ilaa 1937. hantidiisana waxaa lagu qiyaasay 341 bilyan oo dollar. nambarka xiga waxaa ku jira Nikolai Alexander Romanov oo ahaa boqorkii Ruushka kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1868 ilaa 1918. hantidiisana waxaa lagu qiyaasay 300 bilyan oo dollar. nambarka sideedaad waxaa ku jira Osman Ali Khan oo ahaa boqorkii Hindiya kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1886 ilaa 1967. hantidiisana waxaa lagu qiyaasay 230 bilyan oo dollar. nambarka sagaalaad waxaa ku jira William Conqueror oo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1028 ilaa 1087. hantidiisana waxaa lagu qiyaasay 229.5 bilyan oo dollar. nambarka tobnaad ee ugu dambeeya waxaa ku jira qof inteena badan aanan ka filanayn talow yuu yahay. qofka tobnaad ee ugu taajirsan taariikhda inta la diiwaan geliyo waa Muammar al-Qaddafi oo ahaa hogaamiyihii muddada dheer xukumaya dalka Liibiya kaasoo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1942 ilaa 2011. hantidiisana waxaa lagu qiyaasay 200 bilyan oo dollar. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii uu ku cajabiyey inaad videoga like dhahdid, sidoo kale inaad soo booqatid channelkeena Xogdoon oo aad subscribe dhahdid. ayaduna waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar cusub. waad ku mahadsan tahay mar kale daawashada muuqaalka.